Kuliyada Tobobarka Macalimiinta Qaranka hoos tagta Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ayaa soo xidhay Tobobar Mudo 4cisho uga socday magaalada Burco macalimiin ka kala socota gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo kor loogu qaadayo laguna dardargelinayo akhris qoraalka iyo sidoo kale xisaabta. Waxa uu go'aan balkaasi ka hadlay Cabdifataax Rashiid Maxamed oo kamid ah macalimiinta Kuliyada Tobobarka Qaranka iyo sidoo kale agaasimaha waaxda tayada ee Wasaaradda Waxbarashada ayaa ka warbixiyay Tobobarkani Socdey Mudo 4cisho. Tobobarkan ka soo qayb galay 37 macallin oo isaga yimi gobolada bariga oo dhan. Tobobarkan sidaynu hore u sheegnay waxa keenay in la diyaariyo oo macallimiinta la siiyo kadib markii qiimeyn labadii sano ugu dambeysay 2018 iyo 2019 markii qiimeyn la sameeyay akhris qoraalka iyo xisaabta sida ardaydu ku yihiin inkastoo ay meel wanaagsan marayaan haddana in sare looga sii qaado ayaa la dareemay qiimeyntaas kadib kuliyada tababarka macallimiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha la shaqeeya waxay diyaariyeen tababar macallimiinta la siinayo oo waqti kooban ah oo dugsiyada marka tababarkan waxa weeye kii ugu horeeyay ee kuliyadu bixiso ee ku saabsan akhris qoraalka dardargelinta akhris qoraalka iyo fahanka xisaabta kuliyada tababarka macallimiinta waxay wadaa tababaro kala duwan oo qaar waqtigoodu dheer yahay iyo qaar waqtigoodu gaaban yahayba taas marka wasaaradda waxbarashadu dareen bay ka qaadatay in kor loo soo qaado iyo kuliyada tababarka oo iskaashanaya ayaa ay ka hawlgashay arintanna waa tan imika halkan ka bilaabantay waxaan idin ka rajaynayaa in wixii ay dun barateen ee hababkii ardayga loo barayay wax akhriska marka uu yar yahay ee uu ku jiro fasalada hoose ee ka hooseeya fasalka saddexaad iyo xisaabta akhriskeeda iyo kicinta iyo vocabulary-ga iyo wixii faraha badnaaya ay ku soo qaadateen muddadii dhowr iyo 3 saacadood ahayd aynu halkan wada joognay maalmihiina dhaafay inaydan ku celisaan oo ay ka muuqato qiimeynta sanadka dambe qiimeyntaasi joogtay noqonaysaa idinkuna xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tatulka lidisiyay waa inaad markaa idinkuna isku sii xisaabisaan wixii tababarkan kuliyada tababarka macallimiinta wasaaradda waxbarashadu qabatay ma noqon doono kii ugu dambeeyay balse waa kii ugu horeeyay ee noociisa wixii imika ka dambeeyana waxa jiri doona tababaro badan oo noocan oo kala ah oo ka dhici doona deegaanada kala duwan ee dalka iyo dugsiyada kala duwan ee ku yaala gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan tababarka mudada 4cisho ay ugu socdeen kula dardaarmaya casharadii halkan ka barteen iyo wixii ay ka kororsadeen inay deegaankoodii ku celiyaan oo si laga dareemo ardaydii loo tababaray laydinkuma soo xulin garasho laydinkuma soo xulin wax kale oo aad macallimiinta kala dheertiin laakiin waxa la idinku soo xilay iskuuladiina gaarka baahiyo ka jirta akhriska iyo dardargelinta akhriska iyo xisaabta geesta kale waxa halkaasi ka dareen celiyay isla markaana ballan qaaday inay gaarsiin doonaan amaanada si loo dhibay ardayda ay halkaasi wax ku baraan uguna mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumaddiisa in badan laga baalaan dagay runtii aan rajaynayno inaan kula noqon doono iskuuladayadii macallimiintii iyo cid kasto ku lug leh macnihiisu in la xoojiyo xisaabaadka iyo Soomaaliga marka waxaan ku rajo weynahay inaynu fadhiga aynu ka kacno inaynu ku dadaalo sidii aynu kor ugu qaadi lahayn bal labada maado ee la yiri waa liitaan Axmed Jaamacadan Axmed Digiro telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco.